السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ونكسن دلهانتين بوا مركل يحمنتيني ورقتي ضوحي قرآن أو تضبط كهال مركل هتان شاشة التلفزيون كان يشمع التيفي برنامج كهلا وحيدين دادي ساني قواعد cilmi baadhis lagu sameeyay dadka sida joogtada ah oo kala sawirada oo lagu ogaaday inay qabaan xanuunka maskaxda ah. wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa ariga Ingiriiska ayaa daabacay warbixin oo ka qoray cilmi baadhis ay jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka ay ka sameysay dadka sida joogtada ah oo kala sawirada ay kadibna soo dhigay baraha bulshada. koox cilmi baadhayaal ay hogaaminaysay Professor Jesus oo cilmi nafsiga ka dhigta jaamacadda Ohio ayaa daraasad ay ku sameysay ku dhawaad 800 oo qof waxay ku ogaadeen in dadka sida joogtada ah oo kala sawirada ay qabaan xanuunka maskaxda ah. igmaniyo ah cudur nafsi oo qofku naftiisa ugu mashquulay si xad dhaaf ah. waxayna sheegeen in dadkaasi badankoodu ay ku fashilmeen bulshada ay la nool yihiin xiriirka kala dhaxeeya ay waqtigooda ugu badan la qaataan dadka ay ka barteen baraha bulshada. ayna yihiin dad mahsan marka ay dad la sheekaysanayaan ama ay joogaan xafladaha iyo munaasabadaha maadaama ay ka fekerayaan sidii halkii iyo qofka isku sawiri lahaayeen. waxay sidoo kale qabaan psychosis oo ah cudur qofku aaminayo inuu dadka ka caqli badan yahay ugana fiican yahay sida dareenka dadka loo soo jiito maadaama ay dad badan oo aan aqoon fiican u lahayn ay sawiradiisa kula falgalaan lagiyo commenti badan. xubinteena labaad iyo barnaamijkeena wargeysyada waxay qoraan. wargeyska dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa daabacay maqaalo ciwaan uga dhigay madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay colaadda ka aloosan wadamada dariska iyo nabadgelyada dalka. qormada wargeyskan ayaa soo baxday 13 bisha September sanada 2021. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Somaliland go'aan cad ka qaadatay dhibaatooyinka colaadeed ee ka qeexaya mandaqada Geeska Afrika. ay Somaliland ka nabad qabto loona baahan yahay shacab iyo dawlad in gamcaan la isku qabsado sidii loo wada ilaalin lahaa nabadgelyada wadanka. madaxweyne Biixi oo khudbad ka jeedinayay xaflad magaalada Boorama lagu qabtay ku dhawaad 1,000 arday oo ah dufcadii 20aad ee ka qalin aflaxda jaamacadda Camuud kuwaas oo dhameystay qaybaha kala duwan ee waxbarashada jaamacaddaasi ayaa si weyn uga tusaaliyay qiimaha nabadgelyadu leedahay sooyaalkii Somaliland ay soo martay laga soo bilaabo xoreyntii wadanka asaaskii dhismaha dawladnimo iyo ilaa hadda qaranku 30 sano jirsaday. intaas waxaan ku soo afmeerayay xubinteena wargeysyada waxaan la socodsiinayay anigoo Aydman Muuse tan iyo intaan dib u kulmi doona amaana Allah kulanti dambe oo xiiso leh.